لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxaan joognaa Cawaale Stadium oo aan u joogno maanta activity kala duwan. activity qayb kamid ah waxaanu 100 geed ka gudoonay oo Cawaale ugu deeqay hay'adda BSF Puntland oo ugu deeqday garoonka in lagu dhireeyo. waan ka gudoonay aad ay ugu mahadsan yihiin ugu deeqay dhalinyarada iyo sportska ee garoonka Cawaale. aad ay u mahadsan yihiin geedaan waan ka gudoonay. maayarka iyo xubnaha golaha dawladda hoose iyo saxaafadda iyo hay'adda BSF geedahan keentay waan gudoonay sida maayarku sheegay waxaan ugu daray horumarku wuxuu leeyahay baahi god baa la qodayaa 100 god ah digi uu leeyahay qof aqoon u leh talaalku leeyahay biyo leeyahay intaba inay naga caawiyaan oo ku soo daraan hadii alla idmo godka iyagu bixiyaan lacagtiisa mitirka 100 mitir oo godad ah waa naga ballan qaadeen dad ka shaqeeyana waa baleenahay bay yiraahdeen iyaduna waa ugu mahad celinaynaa inuu geedkaas ay gacanta ku hayaan ilaa uu koro waa mahadsantihiin waa isbartibadu ma aha dakhli ma aha waa la hagaajinayaa dakhli way yeelan doontaa laakiin hadda wax iskama bixin karto ilaa aan rooga dhigno oo qalabkan hadda maanta la wareegno oo ay si fiican u shaqeyso hay'ad dakhli ma aha ganacsiga hadaha inay waxaas iyaga dhisay $100,000 baa gashay inay israaciyaan oo darbiga iyo waxa iidiina waa la hadalay baanu ka codsanaynaa hadii alla idmo marka waa mahadsantihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. sida maayarka iyo gudoomiyaha gobolka ay sheegeen weeye dhirtan waxay u baahan tahay in la ilaaliyo in laga faa'iideysto waa bilicdii magaalada waana ka gudoonay hay'adda BSF oo mar walba u taagan barnaamijka bilicda iyo dhireynta magaalada Gaalkacyo waan ugu mahad celinaynaa inta gudoomiyuhu sheegayna waxa weeye hadii alla idmo waa ka sugaynaa meeshan meel dakhli ma aha laakiin anagu inaan ilaalino oo hawshan aan ka sii faa'iideysano hadii alla idmo xoogan saarayna waxaan kaloo bulshada reer Gaalkacyo ugu baaqay dhirtu waxa weeye dadka u baahan gobolka u baahan meelo badan baa dhirta lagu beeray shabaqi loo geliyay godkii loo qoday shimitada loo saaray way dayaceen qof walba gurigiisa hortiisa dhirtii geedkii ku yaalo oo habaysan baa hay'addu u samaysay marka inay ilaaliyaan oo biyo ku shubtaan kaliya bay quuri waayeen waxa nasiib darrada ah oo dadku inta badan ka yimaada hawshaas waxa weeye annaga naafacaysa dhirtu waa inaan ka faa'iideysanaa oo ilaalsanaa oo si gaar ah u ilaalsanaa haddii naloogu deeqay geedkii iyo abuuristiisii iyo dhoobadiisii iyo wixiisii marka waxa weeye aad baan ugu mahad celinayaa.